السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan saaxiibayaal meel walbood dunida ka joogtaan. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Intaas ka bacdi waa mar kale iyo barnaamijyadeennii dhiirigelinta iyo wacyigelinta ahaa. Maantana muuqaal kale ayaynu soo qaadanaynaa. Waxaanu soo qaadanaynaa 5 qodob oo ay tahay dhammaan inaad si degdeg u joojiso. amba haddaan si kale u macnayno aan ku wanaagsanayn adduun iyo aakhiraba. Ayna waajib kugu tahay inaad joojiso. Waa 5 caado oo hoos u dhac mooyaan wax faa'iido aan ku lahayn. Ugu horreyn walaal, maxaa kaa hortaagan inaad riyooyinkaaga rumayso oo guul aad gaarto? Wax kale ma aha, waa caadooyinka xunxun ee aad caadaysatay maalin walba samayntooda, kuwaasi oo natiijooyinkooga isku keenay ay noqdeen waxa aad maanta ka cabaadayso ee rajo xumo iyo guuldarro ah. Waxaa jira qaar aan la iska ilaalin inta badan oo dadku yaraystaan, balse dhibaatooyin ahaan ka dhibaato weyn kuwa muuqda, niyad jab iyo guuldarrana qofka u horseeda. Qodobka koowaad, inaad naftaada uga sheekayso waxyaabo aan heli karin, inaad ku maaweliso. Iska jir inaad naftaada uga sheekayso waxaanad heli karin, haddii kale hanjab ayaa kugu dhacaya. Horaa loo yidhi waxaanad helayn, waxaanad u baahnin ayaa laga dhigaa. Markaa naftaada been ha uga sheegin, waxaanad heli karin naftaada ha ku jahawareerin. Nafta oo lagu mashquuliyo riyo beenihi waa qayb ka mid ah dib u dhaca. Waxaa wanaagsan naftaada inaad mar walba runta kula dhaqanto, ood waddo iyo dhabbacad u jeexdo si ay u qaado isla markaana guusha ay rabtay ay u gaadho. Marka maanta dabadeed iska ilaali inaanad waxaanad heli karin, shaqadeediina aanad hayn, naf iyo waqtina aanad hurayn, naftaad ku mashquuliso. Iska ilaali maanta dabadeed hawl aanad dhabbahayga hayn inaad naftaada ku jahawareeriso. Nambar 2, xumaan ha u arkin dhibaatooyinka kugu dhacaya ee xagga Ilaahay ka yimid subxaanahu wa tacaala. Walaalayaal, haddaynu muslimiin nahay, arkaanul iimaanka 6 ah, tiirka 6aad u dambeeyey waxaa weeyaan inaad rumayso qadarka kiisa wanaagsan iyo kiisa dhibta laba. Sideedaba dhibaatadu waa qayb nolosha ka mid ah, oo waxa nolosha dhadhanka u yeelaya. Dhibna adduun ayaad u joogtaa, oo adduunyada laftirkeeda ayaaba dhib ka samaysan. Haddii aad dhibka ku sabirto ood Ilaahay tala saarato, abaalmarin weyn ayaad heli doontaa insha Allahu tacaala. Hawl walba oo aad u dhaqaaqdiba dhib ayay leedahay. Ku talagal dhibaatadaasi isla marka lehed bilaabayso. Wax dhib la'aanihi ma jiro dunida. Janno ayuunbaa lagu nastaa ninkii Ilaahay siiyo, Ilaahayna siiyo dhammaanteena. Markaa jooji maanta laga bilaabo in dhibaatooyinkaaga diido oo aad dafirto oo aad wax bilaasha raadiso, laakiin raadi halkaad ka calacali lahayd. Nolosha waxaan xal lahayn oo la xallin karini maba jire. Nambar 3, ku luminta wakhtigaaga malaayacni. Dhammaanteen Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inoo cadaalad sameeyey, oo qof walba oo inaga mid yihi 24 saac ayuu helaa maalin walba. oo Ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. Qofna inta in ka badan ma helo, lamana siin. Ogow, lacag badan waa la helaa, laakiin wakhti badan lama helo. Lamana iibsan karo wakhtiga, kaydna ma galo, la ismana ammaanaysiin karo, beddel iyo ciwadna ma galayo. Haddaba isweydii halkeed ku bixisaa, muxuuse kaaga luma wakhtiga qiimahaas lihi. Ogow, wakhtigaagu waa noloshaada. Haddaad wakhtigaaga lumiso, macnaheedu waxa weeye noloshaada ayaad luminaysaa. Nambar 4, khaladaadkaaga oo aanad waxba ka baran waa mid ka mid ah qodobada guuldarrada ku horseedaya. Khalad nuucu doonaba ha ahaadee, ibnu aadan ayaad u tahay oo kolley waad khaldamaysaa. Laakiin waxaa khalada inaad khaladkaaga waxba ka baran weydo oo aad ku soo celceliso uun. Waxaa jira waxyaabo aan kuu fiicnayn, haddana sidaas oo ay tahay
aad maalin walba samayso si maalinle ah. Khaladka aad samaynayso haddii aanad waxba ka baranayn, berrina waad ku celin doontaa uun. Haddaba go'aan qaado oo khaladaadkaaga wax ka baro. Noloshu waa khalad iyo sax. Qof aan waxba khaldinay waxba ma saxo. Nambar 5, jooji raadinta inaad si fudud wax ku hesho. Dadka badankii waxay rabaan inay guulaystaan, laakiin ma rabaan inay wadadeedii maraan oo ay u shaqaystaan. Guushuna waxay rabtaa in wax badan loo huro, loo dadaalo, loo sabro, loo adkaysto. Hadal yar, hawl badan iyo hanuunsanaan baa dadka lagu horumarayaa. Horaa loo yidhi, naftaa loo hitaaqaa waxaad iigsa leedahay. Qodobka ugu dambeeya 6 ku daray waa inaad wax kasta haa tiraahdo. Waxaa xaqiiq ah in qof walba uu jecel yahay in loo dhaga nuglaado oo haa la idhaahdo, balse xaqiiqatan hubaashii adiga kuma fiicno caadadani. Haddaad dadka haa mar walba tiraahdo, waxay macnaheedu tahay naftaada ayaad maya leedahay, qiimahaagana hoos ayay u dhigaysaa. Iska ilaali inaad tiraahdo haa mar walba oo aad noqoto qof si fudud lagu heli karo oo bilaash. Haddii ay dadku ku bartaan inaad tahay qof haala ah amba yaasman inaad tahay, mar walba waa lagugu yeedhi, meel walba waa lagugu yeedhi, xataa meel aan munaasib kugu ahayn sharaftaada iyo dadnimadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.